iskumaan ma nabad baa waa nabad magaciina maqal ee masiirkiinu waa maxay Soomaalo milgaheedii iyo masiirkeedii garato mugdigii ka hayaanto shaydaan maryooliyo munaafiqi iska naadho mustaqiinka ku taagan bay matasha iskumaan haye waraadna qoymayna walaaleegayigeenu mid weeye adna waa tii aan isku xiiqnay xalku waa federaal adigana maxay kula tahay dadka danaha Soomaal kala didinaya nicib allahayow daweeyo iskumaan ku daa'imi allahayow daweeyo iskumaan ku daa'imi adiguna xaqiiqdii dumarkeena xeerka way ku jiraan adna yaa akhiyow xaq ma laga dhunte xamar xundurtii dalka way haye adna xalaalkii ku dhaqmaa xilka waa u qalmaa adiguna haddaan xooga adkeeyno dalku waa xasilayaa adiguna inaan xoorna qabiilkoon qaran xeerinna way adna maxay kula tahay iskumaana arrinteedu waa maanta dalkeeda ixtiraamka dadkeeda wanaagay aragtaayo urin mayso xumaato saxaafadda ama suxufiyiinta Soomaaliyeed dhibka wadanka ka socda iyo burburka ma qayb bay ka yihiin mise way ka hortagaan iskumaanay bal arrinta ka jawaab aryaadaha murtida abwaaniintu dadweynaha Soomaaliyeed intay qalbigooda maashayso ay babaarkoora qurcad isu mari lahayd hadday suxufiyiintu saxaafadda ka sii day lahaayeen aaway waa ku kor fadhiyaan oo maxaa u diiday suxufiyiintu inay saxaafadda ka sii daayaan yaqayo waxa u diiday danahooda gaarka meesha ku jiro oo wixii 30 sano anaka fadhiidka naga dhigi oo wadankoodana haddana ay ku burburiyeen gacantooda waaya oo maxaa kamid ah barnaamijyadaas masaasa ka dhaba waxaa kamid ah nin madaxweynihiisii uu doortay aflagaade yacay u jeedinaya oo ku faanaya mucaaradnimo aan ilaahay baralli ka ahayn isagoo ku afgobaadsanaya shacbigaan u danaynaya mucaaradnimada iyo dhaliishuba dimuqraadiyadda ayaa ogol suxufiyiinta reer galbeedkuna saxaafadda way ka sii daayaan dawladooduna way ku dhisan yihiin maxaynu kuweena ugu diidanahay inay tabiyaan xorriyadda madaxa bannaan ee saxaafadda ayaa qabto boow reer galbeedku hoggaankooda inay dhaliyaan way ku saxan yihiin dawladahooduna way ku dhisnaanayaan boow laakiin inagu dhaliisha iyo mucaaradnimada hoggaankeenna waynu ku dumaynaa arboos saxafiyiinteennuna inay saxaafadda ka sii daayaan ma ahan oo dawladdeena iyo dawladaha reer galbeedka miyaanay isku mid ahayn maya isku mid maahino qoon waliba waxbuu aaminsan yahay ilaahayna qoon waliba waxay aaminsan yihiin ayuu wax ku siiyaa kuna nooleeya walaadhe waa runtiisoo reer galbeedku waxay aaminsan yihiin sharciga ay dhigteen oo faraya ilmuhu inuu aabihii dhaliili karo dawladda ka dacweyn karo wuxuu ka bi'iyana sheegi karo sidoo kalena ay shacbigu madaxdooda dhaliili karaan laakiin innaga waxaynu aaminsan haddaynu Soomaali nahay caqiidada islaamka oo ina faraysa inaynu aabaheen iyo madaxdeennaba aynu ka qaadano waxa aan ka ahayn diinta islaamka ka baxay afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda ka jare suxufiyiinteenu waa inay saxaafadda ka sii daayaan wixii dalka iyo dadka dan u ah oo aan waxyeelo inagu keenaynin 30 sano afkooda warka ma ogtahay warka si adigu dhahdid leelo ka saar warkooda waxa iiga baxaybo dawladii heblow waxay tiri birig jaad ma la keeni karo dawladii heblow waxay tiri birig secret ma la keeni karo dawladii heblow waxay tiri diyaar ma imaahayso موبانة إيك دولة مكوجران ويا وعسك بحيان إلا دولة دلهم إنها الضوضوبيا نينكو جابك لو قيلي صاحبه لكن وحن كورسنا خلت كيا أسكال سنين منين دتك صومالي أو ضياش مركيش يكونين وحيكونوا يان دولة آدم عد دولة أو عبد الله يوسف وكاس وحنا عاي كاسوي وكاس إيك لا برشيخ إيك لا دولة الشيخ شريف إيك لا دولة عبد الله يوسف إيك لا دولة فرماجو إيك لا حكومة حسن على خير إيك لا برتي إيك لا برتي وكاس وركي نعاي واكنا ما مخلوشين هذا يا وركعهم نعاي واكنا ولاد كان بكاني اسكماني إنان استعمالنا دولتي هبل ينان استعمالنا دولتنا كي خيرك يا شرفتو نوغو جرتا دولتنا صحافة دائنا صحنان صحافة دائنا صحنان وصوصا مينا يسيقاذان صحافة دائنا صحنان وصوصا مينا يسيقاذان صحافة دائنا صحنان وصوصا مينا يسيقاذان حمدي mahad ilaahu aqbalay muhashadaydii midigtaan ku dhigay dawladdan biimaha u maray farxad ii milgowdiya libba minanka ii taalle mugdigii dadweynuhu ku jiray waa if maalinahe miirowday rajadii luntee moodku sii wadeeyay seexan waagi maatadu qabtiya meydhan siliciye wixii muruga lala ooyaya maara loo helay shaqaalihii muddada oo maanta waa
wabixi xaqoodii la meelaysan jiray magana loo dhiibiyey musuqmaasuqii laga xorow madowgu saarnaaye mar ma qaado roobkii wakhtiga dheer maqnaan jiray way wada magooleen dhirtii midabka cawlayde maaxbaaba laga dhuray dhulkay maalku ka dideene mudaahanadii laga reefigtiya madasha tuulaydi durba waa kan soo mudhay raggii miiganaan jiray murtiyahanadii lagu tuntiya toostay maansaduye kalamaanka ummadii ahayd waa mid keliyuuni jidkii maxamediin bay dhammaan wada marayaane miciisiga shisheeyana barraa layska maaniciye mar haddii la helay maamul iyo madax la aanaysto oo uu masiirkii shacbigu doorkan miciyaystay maansha alle sow nabadgelyo nololimay muuqan السلام عليكم أخياري وعليكم السلام ساكي محا عصب نبدا عصب يا برواقي هرومش نبد انت تالا بين لما اسكو شيء اسمه حمر جد كستو دغخ لو gooye nabad intay taala ilaahay baaro ilaahay nabad ana siiyo warkii hore war soo dhaaf oo wax wanaagsan baa yimid ma ogtihiin wada kasta oo xamar ka baxda in kaamira saa loogu xiray luuq kasta isgoys kasta oo labadii wada taagan iska daayay cayayaanka dooliga jiirka quraanjada insan loo dheehanayo warkaas ma haysaan wallahi billahi ma badheegna ad korma ko dheegna laakiin arinta soo bajarta doo faylanta wallahi ka farhay ilaahay bay loo faylanta aryaada dadka xaal loo sira dhagxahaan ogay walaxay celi waayeen miyaa kaamara celi kartaa been badanidiina masha Allah kaamira guryaha noo ilaalinayso tuugna ma soo gali karo dool hadii mininkaaga soo galo ida arkeyso nafturqayna siinay miyaa sheekad ajaa'ib waay kaamira ficnaan badana annagu haddaan nahay hooyooyinka kaamirada dan weyna noogu jirto sababtoo ah ilmihii iskuulaadka iyo dugsiga u goynay kaamiradan ka daawanaynaa maxay beerisu sheegay waryaarhe ma barefadsigii iyo dimuqraadiyadii baad meel uga dhacaysaan wiilashay gabdhaha sheekaysanaya rabtaa inaad daawataan cid waliba inaad aragtaan baad doonaysaan waxaan waxa weeye Soomaalidu mucad baa laga qaaday arrinta ma afti baa la geliyay saa u dhici kartaa arrinta nin kasta oo horta khaskhashaad rawo waxa lagu xadgudbi dimuqraadiya lagu xadgudbi la iska soo bilaabo ad meey ka timid adi hadda America ma ka imaanno meey ka timid waayaala ma wala iska arkooya xagga be kaas wax ma ka sheegaysid kayna wax ka sheegay miya kan wax kala lagu fiirno raalaaw nabadaarta lagu ilaalino waa ka diidi sheekadaas meey ka timid bo wala iska arkay ona kan cariirinay miya marka oo hadda waxa leedahay sidaan abni ba ku saxmaya miya ha ma jir ma wixii abniga waa raacaya dee laakiin waxaan isiri ama barefadsiga gacanta ka baxaayo dee halka adoo taagan hadalba dhakada la soo sawiraa laakiin hadduu abni yahay wixii abni anigu waa qaad ما يسكر عني اسكرني فايلتس اسكرني لكن مد ogaadahe inka waxaanay laga rabaa wixii aragtiin ina booliisku u sheegtiin hadii wax idinka sheegi waysaan waxbi ma loo sheegay mogtahay askarta u tilmaama wixii aragtiin oo xaafad ku cusub oo luuqyaal ku cusub oo laamiga ku cusub waraad intay naga soo salaantay alla dhaho dad taas waa waa soo sheegay haddaad maada sulugto adigoo aan murmaynin dadku waa isku maan oo isku mowqifna weeyo madasha ka dhaxaysiya miiska dooda u taalle adigoo aan masuugin oo mirif ciil isla siinin ha munaafaqadayna bal markaa ka jeedi